عبدي هنا أنت رئيس مجنون أنا أدري لها لعقتك هنا لعقت لو أدري لها أنا أكون أدري لها ما لعقت إنسان ها من حالة هذا مصور هذا والله أدري كلا إيه مصور مهم هذا إن السقاق المصور هذا في عن مصور مهم والله أدري كلا عتانا ها اسمس
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u maleynayaa walaalaheen inay sugaynay oo maqnaa halkan cibrada aad baa soo dhaweyn diiran baa ka dhacay rag iyo dumar kulama ka dhacay Suldaan Hussein Badaan ayaa dhinacayga fadhiya dhacaya darkiisa waxaa ku xiga Barre Faatax Dr. Barre Faatax injineerka Farax Say
bishii 8aad oo wuxuu ku saabsanaa degmada waarka gabaygu fiiro buleeyihiyo faalagooniyaho fursad laga hadlu leeyahay faadna qaabilooya dadkana laguma fiiqfiiqo uga fidmiyo yaabe furimaha daluula iyo danta fiira gaaralihi furaan afwaanado haddii layga sooran waaye degmayaay faxaad soo jidhiyo foomku alawo gobol faaxay waligtihiin hadiyo faargiiliya fariiqaynka labada badooda fadli u dhiiro raasiga kafiil carabka laga fahmaya raasiga kafiil carabka laga fahmayo dadka kariba aw fiirsadaan fiidsagaaraha oo hadiise fulka looshidu tulkay kama fogaadaani shalay waxaya filanayn hantida uga fanaaqshiin oo guryahay faqdaadsiin dibaan fooda loo gelin ku filide xaruurahay dadkaga laga falo hadiise lagu furfuro hadalka waa lagu fogaadayo ragguna faanka iyo beenta waa lagu fidmoobaye faca hara yidhaahda faxane fiica laga roone faca kan haray ilaahba faxane fiixa laga roone rag fasaaxad la jiri jiraan fooda loo geliniya kuwii fiira dheeran jira akhiru fulaye nabadoona fula jiraya وفاصحة جباي نكي فرسكا خيرا كورا قبل فرداي فتضا حنون طريق وحكالي لو عفايدين تلك السكاي وحوفاننا لو عفاروق رومه نغفي كواي ودع ذايني فردا شاني عقلي فيه ونكوى فرح قليا وفرور يهانا وقوان كران فيفتي قاد يضيو فادنا معها ونغن علمي وجوغ فيرها إلها يفهم سيو وكرا فقايو عبدو سيدو أدا لغلا فقيو سوين الله سنيرو فايدة بحامكا نكي فاهينا قراني نبطا ملكي سيو دلكا ليمن لفريو فقيركا إيو أقونتيو dibaa loo fikirayayo fiilooyin baa laga dhistay iyo daara fuuqyaliho firfircoonida lagaga tegay faxaladeeniyi dinkaha ka faydmino ma jiro waxaad fadhayseen gabnaa fuuda dheer imaryaa fiiqa marinaya wushiidka firaystaho waliba faamuusa iyagana furqaantu yambarin fogihii dhalay waxay faafinayaan rabbiyo firacdu hay qaado fariinka iyo badahu risiqa laga falaamayo fatishka iyo badeecadaha u dayntu nagu fuusho furbada shacbiga furatay ee fuqurku saameeyey haddii aan firij ilaahay u furin fulxuma jirahe fursada warkeen wasabaan filada usado fasalkiiyo dugsigii mid fog baa loogu fooftegayo faninkaanu hayn fuux guriyo fiiladu barayo faraca caafimaadkana ditoor faamilaan jirino furfaha gabdhaha foshaqaba foraha delo fajacayo dhibaatida mar waa laga fidyooday soomaali waa ina fog tahay faalaha qawoya waxaa kan looga foqay ee degmadan looga fara laaftay ambasi looga furay aan calbari falka uga waayay facebooka geli waa sucaal falla dheer mudaane
kaalmeeya laan soo gooya laantii baa nin walba loo dhigay wadadu waa ka sii baxaysaa bal intaa lagu soo gootiyaa laantaas muxuu fali doonaa maqtii lagu qaadi lahaa baayo intii isku xirbo naxashka looga dhigi lahaa miya waxay noqon doonto miya qaad laantii baa laamihii buu keenay waa isku xiray hadduu isku xiray wuxuu yidhi kii ugu xooga weynaa oo ugu cidiga weynaa quradka ahaa wuxuu yidhi maandhow jebi balsha bahashaan jebi waa jebin way markii dambe arrintu waxay noqotay in mid la qoray bahalka loo jebiyo midnimadiina toddobadiinaan wiil oo walaalaha ah aad kala tagtaana waxaad noqon doontaa mid ugu dowda gooniis loo jebiyo marka waxa weeye waxaan filayaa waxaan kasii sheekeynaya wax hore u taqaanaan laakiin waxaan halka marka waa xusuustaasun baan ula jeedaa aan ka wada hadalno waxa weeye waxaan tagnay dowladda hoose markii la dhisayay caluula baa waxaan tagnay iskuulka waxaa lagu qoraa taariikhda macalinku wuxuu qoraa taariikhda miilaadka iyo hijriyadu qoraa taariikhda miilaadku qoray wuxuu qoray waxaan tiraynaa markaas 2008 maaqa 2009 waxay waxaa ku qoran 2001 bishii afraad intaas baa ku qoran hortaas waxaa marka intaa wax garanay oo ama bisalkiin baa dhihi jira dadka beeraha fala kan islaamiska sababti ma laha xuquuq xaquuqa uu leeyahay raajis uu leeyahay waa mujtamaca intaa u tagtid aad la tartami kartaa dhihi kartaa hay-adaha caalamiga intaad imtixaan ku fadhiisato aqoonteeda iyo karaamadeeda shaqo ku raadsanayaayo imtixaan baan hor fadhiisanaya miyaad dhihi kartaa waxaad dhihi kartaa midkaana laabayo teknolojiyadaasaan aqaanaayo electrician baan ahay miyaad dhihi kartaa waxa weye marka inaad noqda anigu waxaan waxa weeye nin jiifa ninad ma toosiyo waa ka tallaabsana hadday meeshaas khayr jiro adigu aad jiifto waa laga tallaabsana khayrka waa la aaday ma qaadanaya rag baa u dhow magaciisan wax bartay aqoon sida taagan oo aan isugu nim hadda oo aan damacno inaan ka baxdo nabraha dhaawacay leedahay unbaan idinkusidoomeeye waxaan u yeerayaa dr cabdullaahi maxamuud ciise nasr albari salaadiinta oo dhan siyaasiyiinta xildhibaanada wasiirka aqoon-yahanada haweenka dhalinyarada hay-adahan dawliga ahayn waanjooyada mudan iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan aan maaragtay isugu nimaanayna ugu dabaaldegno dib u aasidda maamulka dowlad goboleedka Raas Caseer State of Somalia. marka xiga Soomaaliya ha noolaato
ha israacdo raasacaseen ha jirto ha waarto ha dhaarto cadowgeeda ha dhaco Soomaali waxay dhahday waxaan quraanka lagu bilaabay baraka male waxaan bisinka lagu bilaabay baraka male marka bisinka ayaan ku bilaabanayna kadib hanaankii shirku noogu socon lahaa ayaan ku wadanaa salaada maqrib ayaan tukanayna oo soo laabanayna shirku uu soconaya waa la damaashaadaya rag xigmad ku jirta ayaa halkaa fadhiya xigmadooda ayaan dhegeysanayna caawa telefishinadii ayaa fadhiya waxaan markan ku soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa aayadaha quraanka oo inoo aqrin doono Zayn Cabdicasiis Zayn فليتفضل مشكور بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذه أيضا يوم حسين زين الله كجزيه أيضا أقرأكم إنه أغري إذن كانوا حيث كبير يا maamul goboleedka Raas Caseer State waa maamul goboleed Soomaaliyeed oo muddaatan laga joogo 3 bilood lagaga dhawaaqay degmada Caluula ee gobolka Bari haddaba xaflad lagu taageerayo maamul goboleedka Raas Caseer State ayaa maalintii shalay waxaa lagu qabtay Pangani Hall ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya munaasabaddan oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay salaadiin aqoon-yahan siyaasiyiin culimaa udiin iyo indheer garad kale oo Soomaaliyeed iyo dadweyne aad u tiro badan ugu horeyn waxaa madasha ee furay
suldaanka guud ee deegaanada koonfurta soomaaliyeed ee puntlandba suldaan cabdicasiis maxamed daad suldaan beyle waxaa kaloo iyaguna halkaa ka hadlay faadumo kareeka iyo guddoomiyaha dhallinyarada maamul goboleed madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka raas casayr state bare faatax sanadka 2011 waxaana lagu asaasay magaalada caluule kadib markii ay wada tashiyo yeesheen odayaasha isimada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada iyo dadweynaha deegaanka ku nool waxaa la qiimeeyey xaaladda deegaanka dadweynaha ku nool raas casayr oo meel liidata markaa joogtay deegaanku wax iskuula ma laha wax caafimaad ma laha sida aawadeed ayaa waxaa la isla gartay si dadweynaha loo badbaadiyo in loo sameeyo maamul taabagala oo hanan kara amuurahooda soomaali weyna raadin kara raas casayr state wuxuu ka kooban yahay 2 gobol oo la kala yidhaahdo binna oo magaalada madaxiisu tahay baargaal iyo boolimo oo magaalada madaxiisu tahay caluule wuxuu kaloo ka kooban yahay 7 degmo iyo 73 tuulo raas casayr sida aad ogtihiin walaalayaal waxaa ilaahay ku minaystay khayraad fara badan oo ay ka mid yihiin kalluunka xoolaha beeraha timirta iyo deegaan ku habboon dalxiiska wuxuuna dhacaa juqraafiga inta u dhaxaysa badyada caqmeed iyo badweynta hindiya oo ah marinada ugu muhiimsan ee ay maraan ganacsiga adduunku waana meel muhiim u ah nabadda iyo deganaanshaha adduunka maamulka raas casayr waa maxay himilooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu sameeyo maamul tageysan deegaanada uu ka taliyo xukunkana loo dhiibo dad taya leh laguna soo qoray maxaa taqaan nodyaa taqaan in loo tashado meelaha deegaanka wada dega taladana loo dhiibo in dib loo abuuro iskuuladii iyo xarumihii caafimaadka inuu sameeyo lagu caafimaad oo qiimo leh inuu shiru qabto meelaha deegaanka degan taladana ka qaybgeliyo iyagana loo dhiibo inuu la dagaalamo burcabadeedda meel kasta ay joogto waddankana ka xoreeyo inuu daryeel u sameeyo hooyada iyo dhallaanka inuu xiriir la sameeyo hay-adaha caalamiga taasina waa midaan maanta halkaan u joogaano inuu la dagaalamo kalluumaysiga jariibka iyo iliga fishinga inuu raabso maalgashi dabadeed si looga faa'iidaysto khayraadka dalka iyo dabaddaba maamulkan oo hore uga tirsanaan jiray maamul goboleedka puntland ayaa maanta taageeradiisa waxaa lagaga dhawaaqay caasimadda waddanka kenya ee nairobi cali ismaaciil cali hon cable nairobi لح مليون nin iska dhihi kara cashuurteeda iyo wax ka soo baxay shaqaalaheeda iyo wax ka soo galaya nin dhahaya iska qaado ma dhici kartaa maydiga laga qaado lacagta laga qaado maraakiibta badda ku jirta oo jirifta sanadkii dhaweyd waxay ahayd 4 milyan $6 ya dad baa lisi maraakiib baa lisi mishil ma inaga soo gaaray hal marka hadday nasiin lahayn iskuullada ceelasha lagu filaa biyaha iyo jidad laynama siin marka ma nin ku dhahayaa jira 4 milyan $800 hala siiyo raas casayr may xisaabta kaasi diidaya wax kasta waa isku soo gabanaya annagu se bal baynu qaadnay ka tagnay heerkaa waa ka soo gelinay maanta dowlad salkeedu waa malaha baarlamaan xildhibaanadu idinkaa la yidhi dalka qof kastoo kaleeto waa qof shaqo qabanaya anigu madaxweyne xilka sii hayaan ahaa waxaan jeclahay inaan isu taago xilka madaxweynenimada waxa weeye waa nin la xukumaanay xataa xasaarada waa laga qaadi karaa baarlamaanka hadduu fadhiisto mooshin buu soo oogi karaa wuxuu dhihi karaa ka fadhiiso hadduu khalad qabo
qof kasta oo xil haya wasiir iyo madaxweyne iyo madaxweyne wax xakuma oo xilka qaadi kara haddii qalad galaan waa golaha baarlamaanka xasaanad kala muuqda iyaana xasaanad siinaya sidaa darteed waxa weeye dadkii xakumi lahaa waa dadka marlabaad baan ku celinaya cadaalad ku dara ummadda ku danaya ummaddaas waa dhiban tahay dhibaatadana cid inay waad ogtihiin oo ku nool oo degan oo waxa deganaya kubanaal haddaan intaas tilmaamo reer inta burburku dhacay oo burburka jiray iyadoo aan jid lahayn oo deked lahayn oo yacni dhulka yacni gaariwaa la oran jiray ka hartay marlay gaariwaa wax la oran jiray gobolkii Banjantaya gaariwaa intii kale waa ka baxday laamigaasaa soo baray dekedana u soo baxday intaasoo markay soo bartay waxa jirta gaariga waxa ku hareeyada saas ay tahay haddaan idin idhaahdo hadda dadka koonfur degan oo caasimada degan oo kismaayo degan oo mareeg degan oo caradeera degan oo hobiyo degan 4 kilo qof baa ka jooga saas haddaan idin idhaahdo been baad u qaadaysaa laakiin badday ka shaqaystaan qarkay ka shaqaystaan nabad bay u galeen halkaa u doonteen waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya iyadoo aan ciidan jooga lahayn oo ciidan ugu fadhiisi ay lahayn waxay leedahay 8 kun oo ciidan ah oo maalinta loo baahdo walateeri waa hooyada usoo gurmada waa mushaar qaban waa laga heli karaa dalka intiisa kale su-aashu waa maya taas ilaah baa ku minaystay 8 kun oo nin waxay ka shaqaystaan geedka la yidhaahdo boor waxaa halkaa degan qabaa'ilka halkaa degan anagu marka waxaan maamulka laga dhisay ujeedu leeyahay ujeedadiisu waxay tahay annaga asayid meesha la yidhaahdo Puntland baan dhisay Puntland waxaa dadkii dhisay